كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. waxaynu ku jirnaa bishii Shacbaan, maxaa sunnaa maxaa bidcaa bisha dhexdeeda. intaynu baraarujinayna waa intaas weeye. shan arrimood oo dhacdooyinkii waaweynaa bishan taariikhda islaamka soo maray, iyo shan arrimood oo sunnaa, iyo shan arrimood oo bidcaa. intaasaynu baraarujin lahay waqtiga kooban insha Allah. bishan sanadeedii labaad ama sanadkii labaad aan idhaahda hijrada, bishan Shacbaan, waxyaabii axdaafta ahaa taariikhda islaamiga dhacay waxaa ka mid ahaa taxwiilu lqibla. waa arrin taariikhda la xidhiidho culamaadu taariikh waqaa'ic waxyaabii dhacay markay ka warramayaan ay ku soo daraan macluumaad guudna kuu noqonaysa. qiblada oo la soo bedelay oo xagga markii hore waxa loo tukan jiray baytulmaqdis, waa laga soo bedelo kacbada qaabila baa ilaahay iyadoo ilaahay uu ku amray rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ummadda islaamka hadwal oo ay joogaanba: qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha. ummaddana saasuu ilaahay amrayo waxau uhi fawalluu wujuuhakum waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra. meel kastoo adduunka ka joogtaan xaggaa kacbada wejigiina u jeediya. 16 bilood ama 17 bilood baa loo tukanayay. ilaahay saasuu faray, sidii baanaynu ku soconnaa. waxyaabaha bishan ilaahay uu waajibiyey waxaa ka mid a sanada labaad ee hijrada, soomka bisha ramadaan iyo sakaat fidriga. labadaa faradoo isa saara Shacbaan baa la waajibiyey. waxaa kale ay dadku aada ugu farxeen bisha Shacbaan, awalu mawluudin fi lislaam fi daari lhijra. markay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtu u hijroodeen madiina, ticaadii yuhuuddu ay faafiyeen waxaa ka mid ahaa muslimka waanu sixirno wax dhalayaaba ma jiraba, sixirlana beenunbuu faafiyaa. asxaabigii ugu hor dhashay dadkii soo hijrooday siiba wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu zubayr oo asmaa bintu abi bakr radia allaahu canhu ay dhashay. sanaddaa labadii bishii sanadkii labaad bishaa Shacbaan labadeedii buu dhashay. waxaa ka mid ahaa axdaafta iyo dhacdooyinka Shacbaan maqbarada ama xabaalaha baqiic ee markaynu xajka iyo cumrada aynu tagno aynu soo siyaaranno ee masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka agdhow. sanadkaasaa ummadda uu nebigu u jideeyay in halkaa ay noqoto maqbaradii iyo xabaalihii muslimiinta. isla bishaas baan leeyahay Shacbaan oo sanadkaasa asxaabigii ugu horreeyey lagu aasayna wuxuu ahaa Cuthmaan ibnu Madcuun oo nebiga qaraabo ahayn calayhi salaatu wasalaam. Shacbaan sanadii shanaad waxaa dhashay inankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam awowga u ahaa الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي جينتي سؤال الشيء إسلا سنة كاشتنات وحنا عيد قال كي عصلاء تاريخي جها الأورنجري غزوة بني المصطلق. أحداث تيذا أنت هراء وقت النبي كواي على يدعيك وساكمدها وحيابها سنها بشر. قف كي أودها هي سومي كرا waxaa sunnaa inuu soomka badsado, inuu soomka bishan Shacbaan uu badiyo haddii awoodda iyo duruuftu ay u saamaxayso. taasina waxaynu kaga dayanaynaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay nagu addoonsaday inaynu kaga dayanno sunno iyo faralba iyo dhaqanka diinta. caaisha waxay leedahay
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله حديث كي صحيحين بيشو النبي قصوم بدنا شعبان به رواية كقاركود واحد تلمام يوم قصوم بدنا قاركودنا واحد شيء لما هو ذا سوميتر مال ما كم إذا وحديث كلا بعده أسامة بن زيد بقى ويدير رسولك صلى الله عليه وسلم waxaan ku arkaa inaad aad u badiso soomka bisha Shacbaan maxaa sabab u ah rasuulku wuxuu ku jawaabay sallallahu alayhi wasallam bishan iyada ah ilaahay baa loo kor yeelaa amalka turfacu fihi al-a'malu ila rabbil alamin amalka amalka adoomaha ilaahay loo gudbiyaa fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saa'im waxa aan jecelahay amalkayga in ilaahay loo gudbiyo anigoo sooman oo warbixintaydu Allah u tagto waxa markaa culimadu ay isweydiiyaan xigmadaha ku jira inuu nabigu bishan Shacbaan badin jiray soomka sunnaha maxay tahay ila kullayba Ramadaan baa soomkeedu waajib ah bilaha marka Shacbaan muxuu u badin jiray saddex xigmadood bay culimadu ku sheegeen midiwaata aynu arkaynay uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamay amalkiisii in la kori amalka adoomaha in la kor yeelay uu jecel yahay inay isku beegmaan amalkii oo ilaahay loo qadimay iyo anigoo sooman ama adoonkii oo sooman midda labaad waxa weeye xadiidka laftiisa qaybta hore nabigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam adoomuhu inay qaflad galaan oo bisha rajabna ay cibaadaystaan bisha ka dambaysana oo rajabna muharram waxay waa bilihi ashhur xurumka xurmada lahaa ramadaan waa bishii cibaadada sidaa daraadeed taasoo xurmadeeda ay dhowrayaan oo amalo badan oo cibaada ay sameeyaan iyo ramadaan oo iyana fadli siyaada leh labada dhexdooda ay ku jirtaa marka qaflad baa ku dhacda adoomaha amalka ay fudaysadaan sidaa daraadeed qafladaas naftayda ka saaraya abu nabi عليه الصلاه والسلام ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان marka qafladaas uu adoonka isaga ilaaliyo marnaba cibaadada aanu deynin ila waqtigiisii oo dhan wuxuu uga faa'iideysan karaa adoonku cibaadada waxana la ogsoon yahay waqtiyada dadku qaflada ay galaan cibaadada aanay ku baraarugsanayn amalka la sameeyaa aad buu fadli badan waxa kaloo kamida xigmadaha waa tawti'atu li ramadaan liyakuna alyana li adaa'i salihat fi ramadaan nafti baa la sii carbinaya qofku marka la doonayo inuu dagaal galo dagaalkaasina culus yahay dadaal baa ka horeeya iyo tababar dagaalka ramadaan nafta iyo shaydaanka lala galaya aad buu weyn marka qofkiina aanu iska soo kicinuune ama aanu iska soo toosin markay Ramadaan bilaabmayse isagoo dugsigii tababarka soo maray oo naftii soo carbiyay oo soomka Ramadaan sida hilaaca ku maray uu fudud yahay inuu soo galo way Ramadaan marka waa carbin xagga nafta ah waxa kale oo xigmadaha kamida bay leeyeen culimadu rasuulku sallallahu alayhi wasallam mararka qaar kood waxa badnaa inuu ka mashquuli jiray soomkii sunnaha ahaa bilaha hadiya jeer uu ku dadaali jiray dhexdooda khamiisihi isniintii maalmihii cadcada waqtigii markaa iyadoo sunno badan uu ka tagay ramadaanna soo dhowdahay ayuu soo galayaa Shacbaan marka uu ka gaarsiinayaa sunnayaashii tagay sidii qallahoo kale waayo isaga fursadu muu dayici jirin rasuulku sallallahu alayhi wasallam sunnuhu qallayn jiray arinta labaad ee sunnaha waxa weeyaan صوم السرر من شعبان صوم السرر من شعبان ومالما وبحيي نبيغو مغعاس واولك اخرك اوسطك انت بوالي لكن سيده راجح اي waxa weeye maalmaha dhexe inuu qofkii soomay cadcad oo laba jeer uu sunnayaa shacbaana in la soomo markiisii horena uu sunnaha asxaabigi Imraan ibn Husayn la oranaya radiyallahu anhu nabigu Allah wuxuu hal sumta min surari hada ash-shahri shay'an
bishan shacbaan dhexdeedii wax ma soonto maya buuri markaa rasuulku wuxuu ku yidhi faidaa afdarta min ramadaana fasum yowmayn marka ramadaana dhammayso soo qalleeyo maalmihii ku dhaafay shacbaan ee aada soomi lahayde bishaa dhexdeeda soom buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna saxiixeynka ku sugan yahay waxyaabahaas sunnaha waxaa ka mid ah inaanu qofkii soomin soddonka shacbaan maalin la diiday weeye soomka yowmu shaki loo yaqaano fiqiga islaamiga maalinka la shakisan yahay maalinkaa la shakisan yahay laleeyahy ma shacbaan buu u dambeeyaa mise ramadaan buu u horeeyaa soomkiisu waa hayru mashruuc waana xaraam wey nebigaana diiday calayhi salaatu wasalaam siduu xusaya xadiidkii bukhaari laa yataqadamana axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayn ilaa an yakuuna rajulu kaana yasuumu sawmahu falyasum dalika alyowm qofkii hore usoo soomi jiray mooyaane yay dhicin ramadaan bisha shacbaan labada cisho u dambeeya ama maalinka u dambeeya inuu qofku soom la eegta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa afraad oo sunnaa bishan dhexdeeda qofka wixii qallo lagu lahaa rag iyo dumarba intaan ramadaan la gaadhin inuu u dadaalo fa daynu llaahi axaqu an yuqdaa rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam daynta ilaahay baa ku habboon in loo degdego oo la qalleeyo caaisha waxay leedahay kaana yakuunu calaya sawm min ramadaan famaa astatiicu an aqdiyah ilaa fi shacbaan xadiidkii saxiixa waxaa laygu yeelan jiray soom qallo ah fursada waxaan u heli jirin inaan shacbaan qalleeyo dumar badanna way jiraan sida caaisho oo kale oo ama dhalmadu ay dhaafiso ramadaan ama caadadu ay dhaafiso saa daraaddeed inay lagula taliyo ay ku dadaalaan cibaadada qallaha ah waajib weeye oo dadku way iska ilaawaan way dibdhigaan ilaa uu markaa soo galo bisha shacbaan marka wixii qalla ahaa ee addoonka ilaahay uu ku lahaa ama ha ahaado ramadaan ama ha ahaado kafaara gudkii soomkii kafaara gudka ama nadar waa inuu qofku ramadaan ka hor soomaa waxaa shanaad oo sunnaa qofku inuu ducaysto habeenka shacbaan ay kala barh tahay isagoon cibaadadiisii hore un la imanayn laakiin cibaado siyaado ah aan la imanaynin laakiin ducada iyo istikfaarta inuu badsado taana waxaa u daliila xadiidka xasanka ah ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam fadliga habeenkaa uu kaga warramay waxa uu leeyay ina allaha caza wajal yanzilu laylata nisfi min shacbaan ila asamaa'i dunya fayagfiru lijamiici khalqih ila limushrikin aw mushaaxin ilaahay habeenkaa bisha shacbaan ay tahay kala barhka ilaahay waa soo dega habeenkaa waxa uu dembi dhaafaa khalqigiisa oo dhan qof gaala iyo qof naxli xambaarsan mooyaane qofka gaalkaa looma dembi dhaafayo qofka walaalihiisa kale muslimiinta ah naxli laabta ugu jirana laga dhaafi maayo buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam markaa si uu qofkii uga faa'iidaysto fursaddaas sida khaaskaa uu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ducada badiyo habeenkaa isaga ah xadiidkuna waxa uu la macneeyaa un xadiidkii kale ee saxiixu muslim ku sugnaa min xadiidi abi hurayra ee rasuulku uu xusay sala allahu calayhi wasalam isniin walba iyo khamiis walba camalka ilaahay baa loo gudbiyaa malaa'igtu warbixintiisa ay u gudbiyaan marka qofkaan ilaahay u shariig yeelin aan gaal ahayn waa loo dembi dhaafaa labada qofen aan nacaybshiiyo iyo xumaani dhex oolinna waa loo dembi dhaafaa laakiin labada qof ee xumaani dhexdooda taallo ilaahay wuxuu leeyahay andiruu haadayni xataa yasdalixa 3 jeer ilaahay wuxuu leeyahay u kaadiya ilaa iyagu iscafiyayaan markay iscafiyaan baan anna cafiyi doonaa markaa islaamku ama diintu waxay nagu dhiiri gelinaysaa inaynu saamaxaadda iyo cafiska badinno maadaama aynu ilaahay ka doonayno subxaana wa tacaala inuu ina cafiyo fursaddanina kuma eega habeenkaasoo qurhe sida saxiixa ku sugan habeen walba waynu haysanaa fursadda rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahy ilaahay wuxuu soo degaa habeenka marka 3 meelood oo meele hadho markaasuu addoomaha la hadlaya hal min mustakfirin fa akfira lah ma jiraa mid dembi dhaafi weydiisanaya oo aan u dhaafo hal min daacin fa astajiiba lah mid ducaysanayaa ma jiraa oon ducadiisa aqbalo hal min saa'ilin fa ucطiyah
qof isaguna baryo qadimayaa ma jiraayo wuxuu iweydiistay aan siinayaa oo aan siiyo xataa yatluca alfajr ilaa waagu uu baryayo dilaacayo sidaasuu ilaahay addoomaha ula hadlaya marka inaynu ka jawaabno oo habeen walba wakhtigaa cibaadada iyo ducada iyo istikfaarta aynu u kacno midhi nala gudban weeye marka arrintaas kuma gaar ahaan habeenkaas shacbaan kala badhaye fursaddaa waynu haysanaa habeen walba waa ka faa'iidaysan karaynaa shanta arrimood aynu ka digaynaa waxa weeyaan shiicadu arrimo ay sameeyaan iyo dadka qaarkood oo sunniyiintaba ka mid ahoo iskaga dayda waxaynu uga digaynaa dee maanta adduunyadu way isu furantay waxaa laga yaabaa dad badan oo aan aqoon lahayn markay arkaan dhaqdhaqaaqa la samaynayo dad muslimiini samaynayaan inay iskaga daydaan ama ku raacaan waxaa ka mid a waxay u yaqaanaan habeenkaa ziyaarat lxusein xadiisyo daciifana waa usoo qaataan aan idhaahdee mawduuca xadiisye ay iyagu dejiyeen ay qoreen oo fadli u sheegaya habeenkaas si gaara in lagu uruuro oo lagu buuqo xabaasha xusein oo lasoo siyaarto waxay leeyihin markaa qofka siyaaran kari waayaa falyazur hayrahu min ala'ima imaamyaasha kaleba ha iska soo booqda hadduu gaari kari waayana salaanta un halkaa ha uga diro iyo baridada waxaa labaad oo ka mida waxay soo kordhiyeen wax la yidhaahdo ama xadiisyo daciifa u alifeen waxay u yaqaanaan salaatu alalfiya salaada kunleyda arki doonto iyadoo dadka qaarkood tukanayaan 100 ragcadood oo mid walba lagu akhriyo 10 qul huwa leh markaa dee 10 boqol lagu dhuftay waa kun wey saasay alfiya ugu bixiyeen aadna way ugu dadaalaan waxaanay u arkaan inay kaba miisaan badan tahay ama say ugu dadaalaan si ciidda iyo jumcada ka daran ayay ugu dadaalaan taasina bidcooyinkay ka mid waxa saddexaad oo ka mid ah in la qaldo tafsiirka aayadda aayadda ilaahay uu kaga warramay subxaanahu wa tacaala leylat lqadriga inaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka inaa kunna mundiriin fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina aayaddaasoo ka warramaysa habeenka leylatulqadriga ayay habeenka shacbaan kala barhkiisa ah ku fasireen magacaa bahjaddana way u bixiyeen oo bahjadda dad badan baad ka maraysaa iskaba caamada ah caawa habeenkii bahjadda ama habeenkii bahjaddaa soo dhow dabeetana waxay leeyihin sanadka wixii ilaahay uu qadarayo ayaa habeenkaa lasii qorsheeyaa la habeeyaa malaa'igta lagu wareejiyaa macnaha fadligii leylatulqadrigu uu lahaa bay xaggan u wareejiyeen waana tafsiir qalad ah maraajicda culimada islaamka o dhan markaad dib ugu noqoto habeenka aayaddaasi ay ka warramaysaa waa leylatulqadr ma aha leylata nisfi min shacbaan habeenka shacbaan kala baran maaha waxaa kaloo afraad oo ka mid a waxyaabaha ay sameeyaan habeenkiina in qiyaam lagu gooni yeelo maalintiina siyaam oo la idhaha salaado badan hala tukado kuwa aynu soo sheegnayo qaar kaleba ama qofba intuu kari karee siyaado ah oo lala eeganayo un habeenkaa maalinkiina hala soomo marka soom maalinkii iyo qiyaam ama sara joog cibaado la isu taago habeenkii taana way sheegaan waxaa shanaado ay sheegaan salaad gaara iyaduna 6 ragcadood oo loo yaqaano salaatu raqaa'ib way sheegaan dadkeenna waa ka maqli jirnay wakhtiyadii hore waa la isticmaali jiray imaamu nawowi raximahullah waxa uu leeyahay salaatu raqaa'ib wa salaatu shacbaana bidcataani munkarataani qabiixataani salaadaha la sheega habeenkaa in la tukanayo oo aan hore loo tukan jirin waa bidco aada u xun oo sharciga lagu soo daray oo liidata almuhim waxaynu ku soo ururinaynaa marka ilaahay loo cibaadaysanayo subxaana wa tacaala waxaa lagaga daydaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu waataquu allah ina allaha shadiidu lciqaab wixii nebigu idinla yimaada qaata wixii idin diidana ka taga cibaadadu markaasay ajri iyo abaal iyo ammaan intaba addoonku uu ku helaa haddii kale inkaaro iyo cadaab ayuu kala kulmayaa way iska wanaagsan tahay iyo waxaan dad baan kaga dayanayaa iyo miyaanay fiicnayn oo khayr u ahayn waxaasoo dhan isma soconayo arrimahaasaa bishan dhexdeeda sunno ah arrimahaasina waa waxyaabaha aynu isaga digayno ee dad qalloocan ay markaas si khalada u jidaysteen axaadiid iyo warar mawduuc ahoo ay dejiyeenna ay u alifeen إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء